السلام عليكم أصحابتا كحرب بوجينان بكهندق خليني كوسو دوادا مركلة إيه برامجنا عافماتك وقال كان وحنا وهذا دونا موضوع كله وكوسابسن كأن كومكشيها أمرنا سهر رجع بررة سيدان هرو وصو هذلني كأن كومكشيها أما برر كان سهر رجع كوي ماذا وحاس سببه إسبدله كوي ماذا هرمونات الجركة وهرمونات قار رجع سيقلدان وجبتها أي سبب إنها سهاسي ay bararaan ama ay waaweynadaan sidoo kale waxa sababi doona ama sababi kara xaalado caafimaad darro oo la xiriira qofka isla markaana qayb ka mid ah jirkiisa soo wajaha sida qanjirka dhuunta ku yaala ee lagu magacaabo thyroidka inta ugu badan dheefshiidka maamula qayb fara badan oo jirka kamidana shaqadooda ay qayb ka ah in cilad la soo dirsaan oo shaqadiisa isbedel ku timaado sidoo kale waxa keeni kara culays ama xanuuno la soo dirsa beerka oo qofku beerka hadii uu ka jirado iyana way ku iman kartaa ciladahaasi ama way ku iman karaan ciladahaasi gynecomastia naasiisu inay bararaan iyo sidoo kale xaalado kale oo caafimaad darro in ay la soo dirsaan muuqaalkan inta ku guda jirno waxa daawan doontaan bukaan gynecomastia aad u waaweyn aan ka xalinay isla markaana hadda xaaladiisa caadiga ahayd dib ugu soo noqday haddii ilaahay inta muuqaalka guda jirno waxaad ku daawan doontaan ka hor qaliinka inta bukaanka loo sameeynin iyo in xilliga qaliinka loo sameeyay sidoo kale kadib marka qaliinka loo sameeyay oo caafimaaday sidoo isu bedelay maxaa xal waa marka qofka gynecomastia oo ku dhacay laba ayaan u kala qaadi doonaa gynecomastia hadii qofku xaaladiisu aysan aad u weynayn ama naasiisu aysan aad u waaweyneen oo ay yaryar yihiin ugu horreyn qofkaasi waa inuu stresska iyo buuqa uu iska saaro xaaladda ganaanana uu dib isugu dayo inuu jirkiisa ugu celiyo exercise iyo sidoo kale almiito iyo waxyaabo lamid ah inuu sameeyo raashinka qolofta leh inuu badsado kadibna uu booqdo dhakhtar si loo hubiyo isbedelada waxyaabaha sababay bararkaasi naasaha ku socda kadib markii la helo xaaladii sababtay waxa suurtagali doonta in meesha lagu celiyo naasaha oo si waaweynaan qofkaasna xaalad saa'ida iyo bulsho ka dhexbax iyo isku buuq oo ka hortago xaaladiisa caadiga ahaydna uu dib u wato haddii aan soo noqdo qaybta kale oo ah in naasihiisa qofka ay aad u waaweynadeen qofkaas asalatirkiis waxa muhiim ah inuu exercise sameeyo jirdhis sameeyo cuntadiisa bedelo stresska isku buuqa iska saaro cabsida faraha badan oo iska saaro xaalad aad u weyn ma ahan qofka hadii waxa ugu daran waxay tahay in isku buuqaas iyo isku dhaxyaaca qofka in la soo dirsaya inta kadib waa inuu dhakhtar booqdo check up lagu sameeyo kadib markii la ogaado xaaladiisa ama sababta keentay naasahaasi markii la xaliyo kadib bukaankaas wuxuu mari doonaa in naasahaasi laga jaro isla markaana jirkiisa sidii hore loogu soo celiyo isla markaana quruxdiisa ay dib isu keento waa mahadsantiin